loo soo saaray go-aan ah in isna la dilo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad fiican tihiin. isku soo noqosho labaad iyo video cusub. maanta waxaan ii hayaa qiso kale oo aada xiiso badan. qisada intaanu bilaabin waxaan kaa rabaa inaad hadda channelkayga ku cusub tahay inaad like, subscribe and share intaba sameysid insha allah. haddaba qisada sida noogu bilaabmaysa waxaa jiray nin kasoo waraxay shaqadii meelaha duurbeheed ayaa waxaa dhacday maalmaha kamid ah sidii caadihii isagoo shaqada kasoo rawaxay ayaa waxuu arkay gabadh midi la geliyey. deetniinku waa u naxay, gabadha wuu istiraahday u gurgaar. in yar kadib dad baa kasoo baxay, waxay moodeen in isu midida geliyey. waa lagu tuhmay, waxa lagu dhahay waa adaa geliyey midida gabadha. ninkii waa hadlo xidhan waxa ma gelin qaas iska mari gabadha gurgaar baan islaha xilli duhuradan gabadha cindada joogta ee dhiigga baxaysa waxa ku dhacay ee u gurgaar baan islaha waxa midin geliyey ma jirto. ninkii laakiin waa laga rumaysan waaye. ninkii waa la qaaday, waxa lagu dhahay maadaama keligeed ahayd wadaadna inta joogtay maxaanu kaa garanaynaa adigu midida gelsayn kale. ninkii waa la qaaday, waa la xidhay. socotay sheekadiisu 2 bilood socotay baadhitaan, laakiinse wax kasta waa la waayay. waxaa lagu tuhmay ninkii inuu isagu gabadha dilay. gabadhina in yar kadib markii uu dhimatay kadib gabadhi baa ninkii lagu tuhmay inuu isagu dilay gabadha. ninkii laakiinse waa loo xidhay anu gabadha maan dilin, waan la kulmin buu dhaaday. laakiin wax haba yaraata wax laga rumaystan ma jirin, lagama rumaysata. kadib ninkii waxaa loo soo saaray go-aan ah in la dilo. deet ninkii waxau dhahay waxaad ii rumaysan leedihiin anigu waa gabadhan waa la kulmay wadadan socday laakiin anigu maan dilin. maalmihii way isgureen, waxaa la gaadhay cayaantii ninkii la dilayay. kadib ninkii waxau dhahay kolley waad rumaysan weydeen, markaasana waxaa rabaa inaad dhegeystaan arrin baan ii sheegayaa. arrintaas anigu saabsan tahay waxaa jirtay beri waxaan ka shaqayn jiray doon yar baan haysan jiray, doonta hoose ka shaqaysan jiray. waxaa jirtay 2 tuulo ayaa doonta dadka kaga talaabin jiray. deeta shaqadeeda saas ahayd, halkaasaan ka heli jiray nolosha maalmeedkeeda. kadib ninkii wuxuu dhahay maalin maalmaha kamid ah gabadh bay soo raacday. gabadhaas aad baan ugu helay, gabadh aada u qurxoon bay ahayd. deeta gabadha waxaan isku dayay in xaafadooda tago oon kadibna aan idhaahdo gabadha siiya. deeta laakiin gabadhii way iga diiday. aan ku noqnoqday gabadhii laakiin way iga soo taagnaatay, way diiday. maalin maalmaha kamid ah shaqadeeda naskaga jira oo doontii ka shaqaysanaya dadkii ka talaabinaya ayaa gabadhii iyo in yar bay soo raacay. anagoo farxay fursad baan helay badhaadi. shaydaan baa markaa ninka u qayqayray, waxau bilaabay inuu gabadha ku dhahdo maxaad igu diiday, yacni waxaan rabaa inaan ku guursado. kadib ninka waxau bilaabay gabadhii qasbo oo ku dhahdo qasab waan adigu yeeshaa. kadib inkii gabadhii markii diiday waxau bilaabay inuu ina yar la socday uu lugta qabto oo madaxa u geliyay wadiga oo kii yaraa hafiyo. kii yaraa inta uu qaylinayaa ninkana gabadhan wuxuu ku leeyahay maad yeelisa ininka yaraana dhinac buu ka hafinaya. ininka yaraa siduu u hafinayay sanqadh iyo codtoona markaliyo laga waayay. ninkuu naxay, ininka yaraa u dhintay. deeta wuxuu dhahday gabadhana kolley ku sheegaysaa sina kuma badbaadisay. markaa isaga iyo gabadha ba israacay. kadib wuxuu sameeyey ninkii gabadhina waa dilay. webigii dhexdiisa ay gabadha iyo ninkii yaraaba intuu dilay ay ku tuuray. doontii yarayna wuu iibiyay. cid haba yaraata ogna ma jirin inuu dilay gabadha iyo ninkaa yar, ilaahay mooyaane. kadib ninkii waxau dhahay saaisaasa jirtay beri baan waxaasi ku dhacday shaqadeedan. kadibna markaasaan shaqadiisaasoo hore isaga tegay, markaasaasay ku dhacday. kadib shaqadan cusub baan bilaabay. shaqadeeda waan iska shaqaysan jiray, si caadi iskaga shaqaysan jiray. kadib anoo si iskaga shaqaysan jiray baa maalin shaqada markaan ka soo raacay ayaan baan arkay gabadhan la dilay ee mididii. laakiin anigu gabadhan maan dilin. keliyaat waxaan ogaaday inuu ilaahay aniga iga jaray oo yacni waxyaalaha dulmiga aada samaysid inaa aakhiro ama adduun in lagu kashafi doono. waxaan ogaaday inuu ilaahay kashafay. markaas markaa arrinkan inii sheegaya markaanu gabadha maan dilin, laakiinse 2 qof oo hore oo ilaahay arkayay ayuun baan dilay. markaas ilaahay waa kaa iga jaray. markaas diyaar baan ahay dishaan. dee markii sidii baan geli ku dilay. qisadiin haddaba saas ku eg tahay. haddaad ka heshay videogan insha allah like and subscribe and share. haddaba intaanu dhammaan qisadani dowladeedu waxay ahayd in waxyaalaha yacni dulmigaa samaysa qarsatid inuu marwan ku kashafi doono oo ilaahay adiga yacni markastaadna oran
cilima arkiso laakiin se ogaateen uu ilaahay ku arkayo waxay samaysid markaad ninka wata ilaahay markii dambe uu ka shafay isagoon ka filinba ee lagu yiraahday dil aanu soo jeesan adiga dilay markaas wax kasta oo sameynaysid waa inaad ogaateen ilaahay markasta ku arkayo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.